بسم الله الرحمن الرحيم magacayga waxa la jiray Cabdiraxmaan Maxamed Baabuur waxaan jeclahay inaan ka hadlo kulliyadaha isgaarsiinta ee Soomaaliland ku jira marka hore haddii si guud uga hadalno waxaad moodaa adduunyada inay horumarkii ugu dambeysay ka gaadhay isgaarsiinta taasoo la yiraahdo imika global village adduunyada waxay noqotay tuulo waxa uu suurtageliyay isgaarsiinta waxay qayb ka tahay horumarkii noloshii dhaqaalihii siyaasadii iyo baac mushtariga taas waxa markaa lama horaan ka noqotay in cid walba xiisayso inay kor u qaado isgaarsiinta telecommunication sector-ka meelo badan adduunyada dawladdu ay ku bixisay private oo shirkado private ay kala wareegtay meelo badanna qayb bay ku leedahay waxaa jira sharciyo badan oo regulation oo adduunyada lagu sameystay mid adduunyada caalamka mid gobol ah iyo mid wadamaaba waxa soo dhan waxay ku tusaysan inay tahay isgaarsiintu halbowlihii nolosha dhinac walba ku xidhnay ilaa imika la gaadhay in wax walba email commercial bank system la samaysto oo laga reesto safaradii iyo socdaaladii wixii oo dhan halkan Soomaaliland iyadoo taa ka faa'iideysan si horumarka adduunyada waxa ku soo kordhay in dhowr sano ugu dambeysay jaamacado badan ay bilaabaan inay ku kordhiyaan waxbarashadooda kulliyadda isgaarsiinta kulliyadaha ugu badan qaarkood imika 5 sano waxay ku jireen inay baraan ardayda isgaarsiinta baahida isgaarsiinta loo qaba waa taas bay noqotay adduunyadu ay ka siman tahay Soomaalilandna waxba loo tiriyaa meelaha isgaarsiinta adduunyada ugu wanaagsan in Africa waxaana kale oo jira waxa adduunyada in Africa ku dheertay Soomaaliland inuu nahay price-ka low qiimaha ugu jaban ee communication-ka in Soomaaliland uu jiro marka loo eego direct dialing-ka ama adduunyada la hadalkiisa waxaan ka hadlaynaa marka bacdaama horumarkiisa uu tallaabsaday waxa laga marba noqotay inuu la jaan qaadno oo aynu abuurno kulliyado haddaba kulliyadahaasi laga abuuray jaamacadaha oo kuwii ugu horreeyay ay ka soo baxeen wadankana qaybo badan ay ka shaqeeyaan horumarkiisana wax ku kordhiyeen waxa soo gala ardayda ka soo baxda secondariyada waliba waxa soo gala ardayga ishuba inuu waxbarashada ku wanaagsan yahay gaar ahaan physics iyo xisaabta ardaydaasi markay jaamacadaha soo galaan imtixaan baa laga qaadaa kuwii baasa ayaana u wareega kulliyadaha isgaarsiinta badankoodu waxa uu yahay curriculum-koodu mid ku xidhan kulliyadaha ay xiriirka la leeyihiin qaar Hindiya bay xiriir leeyihiin qaar Ethiopia qaarna Malaysia marka curriculum-ka dhan waxa uu base ku yahay marba cidda ay xiriirka wada leeyihiin kulliyadaha badankoodu waxa ay course-koodu yahay 3 sano mostly 3 sano ayay ka sameeyeen oo ardaydu ay dhigtaan ardaydaasi waxa ay bartaan koorsooyinka ay dhigtaan waxa kamid ah waayo isgaarsiintu way isbedeshay anigu markaan jaamacadda ku jiray email-na muu jirin mobile-na muu jirin fiber optic-na muu jirin intaa ka dambeysay maalin walba waxa isbedelay horumarka ugu badan ee lagu tallaabsay adduunyada oo ugu dheereynaya the last 10 years ugu dambeeyay waxa weeyaan communication-ka marka waxa haboon in kulliyadda ardaygu la jaan qaado isbedelka ku dhacaya waxa dhacday intuu jaamacadda ku jiro in isgaarsiintu heerkii curriculum-ka loogu talagalay ay dhaafto wax ka cusub la dhigo imika waxa ugu dambeeyay adduunyadu isticmaasho maxay waa optical fiber waxa khas marka kulliyad kasta ku ah in curriculum-keeda ay update gareyso oo ay la jaan qaado isbedelka si ardaygu 3 sano markuu dhameysto ee uu fiilkii u shaqo tago uu wax aqoon u leeyahay noqdo taas marka waxay keentaa in aad la isku dayn la helo macallimiin professional oo u badan master oo taqaana communication-ka kuwaasoo wadanka aad ugu yar badankiisu ardaygu waxa uu bartaa technology-da ugu dambeysay oo ay ka mid tahay satellites-ka air stations-ka waxa kale uu bartaa fiber optics-ka iyo GSM-ka mobiles-ka waxa soo dhan waxa u dheer isagoo yaqaana tii traditional-ka ahaa ee telefoonadii leemankii dhulka la marinayay waxa kale aad u bartaan microwave-ka waxyaalaha kale dheer ee sayidka aqoonta u kordhiyo waxa kamid ah radar system-ka ardaygu waxa uu helaa aqoon fara badan oo ku saabsan
digital era ama next generation aqoonteeda taasi waxay keentay in ardaygu isagoo basekiisa uu dhisan yahay uu shaqo tago arday badan oo kulliyada ka baxay waxay ka shaqeeyaan oo ay ka xaqabteen baahida u qabtay shirkadaha telefoonada qaarkood idaacadaha ka shaqeeyaan television ama private sector ka shaqeeyaan waxa jira marka fursado badan oo shaqo oo ay heli karaan ardayda kulliyada ka baxa waxa ugu badan isgaarsiinta waxay kale ka helaan TV-yada idaacadaha satellite-da iyo dhammaan fiisatada kuwa xidhoodha hay'adaha wax kasta oo isgaarsiina oo wadda ka taagan shaqay ka heli kara oo ka shaqeyn kara waayo aqoontooda base-kooda ayaa ballaaran oo ah oo ugu talagalnay inay fiilal badan cover gareeyaan waayo ma soo saari karno arday specialist fiil kaliya ku ah way wadankeenu ma aha noocaas taas waxay keenaysaa in aqoontooda base-kooda la ballaariyo si ardaygu fiilal badan far badan uu cover gareyn karo waxa marka uu si dheer ardaygu mar haddii base-kiisa dhisan yahay waxa uu fudud oo aad u heli karaa inuu aqoonta sii wato isagoo ka heli kara mastered waayo way jiraan qaar badan oo mastered ugu baxay Malaysia Uganda oo iyagu mastered wata ka soo noqday oo ay anfacday aqoontii halkan kala tageen waxaan imika markaa jira in kulliyadaha isgaarsiintu ay aad u soo kordhayaan waliba waxa arintaas dheer in habla badani ay dhigtaan kulliyadaha engineering-ka qaar ahaan telecommunication-ka waxay ku dhowdahay in tirada ay isleekaadaan wiilasha iyo gabdhaha ka baxaya kulliyadaha isgaarsiinta taasina waa arrin wanaagsan oo ku tusaysa in dadku fahmeen baahida loo qabo isgaarsiinta waliba aanay ku ekaan awal fiilkaas oo ay ragga majority ku ahaayeen oo ay xukumi jireen in imika lala qaybsado oo ay haweenku la qaybsadaan taasna waa arrin weyn oo aan dhiirigelinayo aad baan u jeclahay in habluhu la helo hablo fara badan oo fiilkaasi engineer ku ah marka waxaan ku talinayaa maanta adduunyadu waxay ku socotaa digital era systemkii analog waa laga tagay wax walba aqoonta base-kiisa waxay noqotay isgaarsiinta waxay ku xidhan tahay internetadii wixii oo dhan caalamkii marka waxa lama huraana inuu helno arday badan oo timaada oo wax barata oo qaybta isgaarsiinta gasha waxaan aad ugu dhiirigelinayaa in ardayda aan dheelsan kulliyada isgaarsiinta marka waxaan ardayda kula talinayaa inaanay chance-kooda iska lumin wassalaamantiin assalamu calaykum waraxmatullaah